أي سلام نوري حديث كوركينات وصادق ودني وحاربنا ما ترفع عادي السدحات برنامج كين امتحانها إلا أنا بارت 5 إن رفع عادي دي سدحات دي سو قد بنا تاس أنا قد لنا هاي يعني فكرك aragtida ka dambeeya RDS waxaan rabnaa qof dambe inuusan xagga kan idiin soo dhigin RDS waxaan baan ka samey waxaas baan qabtaa waxaas inuusan idin dhihin oo aa idin tusino itusiyo itaabsi sirta ka dambaysa okay waxa ay guddo waxay gato waxaan rajaynaynaa inaan yani qof walba oo ingiriiska yaqaan inuu qorshahankan ka faa'iidaysan kara asiga hadduu jecel yahay inuu hore u socdo laakiin hadduu rabo inuu video iska daawado dadka lacag ay soo sameeyaan sida xagga dadka usoo dhidhigaan hadduu jecel yahay inuu iska daawado iyadana waa gooni waxaan taaban doonaa saddex qodob aan idhaahday marka ugu horeysa kambanigii tuugada idinkaga digi jiray oo loo yaqaana Fiverr waxaan kaloo taaban doonaa ii sheeg qofka inuu u baahan yahay Prime ama inuusan u baahnayn waxaan kaloo taaban doonaa waxa loo yaqaano RDS how many companiyo ayaad waxaa ku samayn kartaa waxa loo yaqaano automation ama aad ku xiran kartaa iyagana waa ka hadlaynaa saddexdaas qodob insha allahu tacaala barnaamijkan imtixaan uu noqon doonaa maadaama dad badan ay nagu yiraahdeen barnaamijkan dad baa advantage ka qaata fadlan noo soo biyaani sidaa laaligeed waxaan jecelnahay inaan mar walba idiin soo biyaanino aan xaggan idiin soo dhigno waagaa gudahan u galno marka ugu horeysa waxaan ku bilaabaynaa waxaa loo yaqaano RDS nafteedaan tegaynaa RDS markaa dashboardkeeda arkaysaa mawduucyo fara badan marar badanna waa ka hadlaa dadka inaysa isku qaldin waxa loo yaqaano total revenue lacagaha guud oo alaabahaada ay ku jiraan iyo marka labaad inay isku qaldin inta order adiga lagaa dalbaday iyo marka saddexaad inaan la isku qaldin inta loo yaqaano inta aad saalaada hadda u sameyn anaga last 24 hour waxaan sameynay 92 afar order ayaana laga dalbaday waxa ayna maraysaa profitken 21 so dadka intooda badan waxay idin tusaan meesha tan loo yaqaano revenue-ga intay sameeyaan but they're not going to tell you idima sheegayaan inta lacag ay ka faa'iideen so taas waa waxaan dadka uga duwanahay ma jecelin xaqiin inaan anaga lacag inaan idinka qaadno ama lacaga badan inaan idinka qaadno aan idiraan waxaan baan sameeyaa waxaas baan sameeynaa waxaas xaggan annaga mar walba faan dadkina u faano ma soo dhigno waxaan rabnaa dadka inaan tusno waxyaabaha annaga aan qaban karno iyo waxyaabaha aan ii sheeg bulshada ayaga ay qabsan karaan laakiin waxaa ka mamnuuca in beenta la isku sheego so 92 xagga kan waxaa ku qoran $92 inaad ii sheegaan oo qofka kan anaga aan totalka macal alaabaheena ku jira afar order in laga dalbaday maantadan xagga kan waxaa loo yaqaano $21 faa'iidada inay tahay okay saas waa inaa ula socotaa waa page-ka ugu horeeya qof walba oo sidaa yiraahdana waa inuu ku tusaa mawduucyadan yaana la dhihin waxaan sameeyaa $300 waxaan sameeyaa $1,000 waxaan sameeyaa $2,000 waa in lagu tusaa usually ganacsi sidiisaba waxa muhiimsan revenue-ga wuxuu yahay orderadaada iyo in lagu tuso faa'iidada so that's the only you can faa'iid after order 21 which means $4.50 profitkan waxaan ka raadina order walba accounting is one account and then we are not going to tell you intaasan accountiga badan aan leen like this is the one account maxaa kale RDS oo yani ku fiican yahay marka aad ku dhufato waxa loo yaqaan waxaad arkaysaa mawduucyo fara badan xagga kan kaaga soo bixi kan ugu muhiimsan inta badan waxay tahay markaa ku dhufatid add-ons meeshay ku qoran tahay xagga kan wuxuu kuu sheegay annaga haddadan ina eBay aan ku sameyn xagga kan wuxuu kuu sheegayaa Shopify haddaad u baahan tahay Shopify waqti xaadirkan price-koodu waa very high qolooyinkan laakiin haddaa linkigan hoose aad ka saxiixdo waxaad heli doontaa waxa loo yaqaano 20% discount okay Shopify haddaa u baahan tahay inaad ku xirato sababta ugu fudud yahay Shopify inaad ku xirato haddii aad Amazon alaab ka soo qaadaysid haddii aad ka soo qaadaysid meesha loo yaqaano AliExpress haddii aad ka soo qaadaysid Alibaba haddii aad ka soo qaadaysid DHgate iyo meelo badan oo la halmaala wuxuu kuu saacidi doonaa in one click aad alaabahaada kusoo qaado companigan that's what is good uu ku fiican yahay one click in alaaba kusoo qaado su'aalada haddaan dhahno buy and Shopify haddaan ku dhufano waxaa arkaysaa price kan inuu $29.99 maraya markaad annaga aad linkigan hoostiisa ka saxiixdo waxaad heli doontaa waxa loo yaqaano 20% discount ya marka annual u saxiixdo okay 25% discount ya waxaa lagu ogol yahay 500 alaab inaad soo geliso bishii okay fadlan companyga linkigan hoostiisa haddaa u baahan tahay inaad 200 alaab aad soo geliso adoo aan store baan lagu dhisin waxyaaba aan lagu dhihin markan wuxuu kuu qabanayaa keliya waxa uu kuu soo gelin doonaa alaabaha un keliya okay taa waxay kaa saacidaysaa inuu 500 alaab Amazon inaad ka soo qaado Walmart ka soo qaado AliExpress ka soo qaado meelaha dhan aad ka soo qaado aad xaggan soo gelin karto 500 product so wahagaag taas waa taas markaa u baahan tahay Shopify inaad ku xirato Amazon waa ku xiran kartaa laakiin dadka intooda badan kulama talinaya Amazon is a big giant mana ogola waxyaabaha automationka
aad buu u dhib badan yahay qofkii galaya waa geli kartaan laakiin aniga I don't recommend it maadaama Amazon ay tahay platform uu qofka millions ka samayn karo ma inaad risk ku qaadato accountigaaga iyada ah Facebook marketplace US Canada Europe waxa dhan waa ka samayn kartaa iyadana haddaa u baahan tahay pricekood aad buu raqiis u yahay mar labaaddan xagga hoosaad ka siixaysaa waa $34.99 haddii aad yearly bixiso waxaad save garaynaysaa $114 haddii aad annaga accountigeena yani linkigeena hoose aad ka siixida iyadana waxa aad save garayn doontaa waxa loo yaqaano 20% ee dheeraada waagaag xagga hoose waxaanoo kale waa WeCommerce iyo waxyaabahan dadkii hore caddaankaa samaysa laakiin tan kale waa TikTok I don't think TikTok mar wuu baxaa mar wuu soo noqdaa inkastuu asna iska dhib badan yahay laakiin haddaa u baahan tahay TikTok moo sharaxaad guud fadlan pageka xagga hoose noogu soo sheega adduunka meel alla meeshaa joogtada ka samayn kartaa waxaan haynaa qorshooyin fara badan oo arrinka asigna loogu talagalay waagaag markaa ku dhafato Pipeline TikTok wuxuu kuu sheegi doonaa asna $34.99 inuu yahay haddaad sanad u bixiso haddaad bilo u bixisane waxa uu tegi doonaa waxa loo yaqaano waxa uu tegi doonaa waxa loo yaqaano 40 something wax la jira laakiin usbuuca ugu horeeya 14 casho waxa bixin doontaa only waxa bixin doontaa only waxa loo yaqaano 7.99 okay 0.99 cents 0.99 cents kaliyaad bixinaysaa so TikTokna waa ku samayn kartaa like TikTok you have to be careful again same thing Amazon are very sensitive like TikTok also is sensitive you have to know waxa aad samaynayso videoyin fara badan ayagana kasoo wadnaa fadlan ha moogaani waagaag marka intaa dhan aad samayso maxay kale qolooyinkan iyaga dheeriin waxa ay dheeriin waxa ay kuu sameyn waxa loo yaqaan animation macnaheedu wuxuu tahay haddaadan rabin inaad prime account aad samaysato prime account waa taqaanaa somaha prime account haddaad u baahneen haddaad Africa joogto wadamada meelaha dheer aad joogto haddaad rabto inaad prime account samaysato prime account ayaga haddaadan awoodin inaad samaysato ayaga ayaa prime account kuu samaynaya oo ayaga alaabaha kuu soo iibinaya sidee alaabaha kugu soo iibin annaga maadaama accountyadan iska badneen sometimes waxaan u dhiibnaa accountyadan ka mid ah sida tusaalaha xag ku cad ayaga ayaa noo sameeya markaa kadibna waxa ay sameeyaan waxa ay raaciyaan tracking number which is eBay tracking number haddii la raaciyo accountigaaga waxay noqonaysaa mid aanan ii sheeg hore laga xirin okay so ayagana way sameeyaan waxa loo yaqaan animation waxa loo yaqaan macnaheedu waxay tahay alaabta lacag baa xaggaa ku shubanaysaa bartaa loo yaqaano lacag baa ku shubanaysaa lacagii alaabta lagugu soo iibin lahaa iyo waxaa samaynaysaa auto process wax loo yaqaano xagga kan oo 99 bishii ay kaa qaadaan order process labadaa markaa samayso fadlan anaga nala soo xiriir annagaa kuu sheegi doona waxyaabaha kale oo easygaa kuu dhibdhiman annaga ayaa kuu xalin doona wax weyn ma is free nothing qof alla qofka u baahan laakiin waxaa shuruud ah inaad xaggan hoose linkiga aad ka saangarayso haddaad u baahan tahay RDS inaad saangarayso maxaa kaloo kuusii dheeraan ilowsanahay RDS haddaad u baahan tahay waxaad hayr garayn kartaa dadka intooda badan ay sameeyaan annaga dad badan aan garanayna xoogaa yar iska walwaala oo meelaha ku jira TikTok iyo meelaha la halmaala oo ku xirta qolooyinkan accountigooda u dhiibta laakiin caqabadooda ayay leeyihiin mar walba waa ka dardaarmaa inaad iska ilaalisaan dadka kan sababtoo ah waxaa laga yaabaa suuqa alaabahaaga inay ku iibsadaan haddaad North America joogto iyo meelaha loo halmaalo Europe waxaa laga yaabaa inay macluumaadkaaga ay ku iibsadaan meelahan black market loo yaqaano suuqyada madow waa laga fiican yahay haddaa laakiin aqoonteeda leedahay waxaa aboon inaad la hadasho aad kula xirato accountigaaga ku weydiin waa ku xiranaysaa markaas kadib waxay noqonaysaa inay accountiga ayaga ku manage kareen adoo aan waxba aqoonin laakiin waxaa haboon marka hore inaad barato waxa aad ummadda u dhibanayso waa inaad ogaataa waana iska qayli waxaana kuusii dheer 30% waxay kaa qaadanayaan 30% markay kaa qaataan the end of the year canshuurta adaa xareynayo marka canshuurta xareysaa ogaanaysaa culayska ay leedahay ama marka accountiyo fara badan accountigaaga laga furto magacaaga saddexan adduunka macluumaadkaaga dhan ay arki marka accountiyo ay kaga furtaan hadhowna ay payout ka dhigtaan waxa loo yaqaano ponier adoo aan ogeyn okay 45 account Amazon Shopify meelaha ay ka shaqeeyaan so caqabad kale oo dheeraad waaye dad baa jira waxyaabahan xayeysiya fadlan be careful ani ahaanteen wixii akhbaarteena kaga hadlaynaa annaga ma xayeysiinayna koorsa naga iibsataan alxamdulillah annaga ka shaqaysana laakiin ka taxadir boholaha aad ku dhacaysaan ummadda idiin horseedaan aqoonta fiican aan u lahayn waxa ay meelaha la yimaan it's not like 4 month 5 month inaad ku soo carcarto ummadda darbiyada aad ka tuurto waa laga fiican yahay waagaag tan kale waxaan ku xalleynaa aan ii sheegay iyadan isleenahay qofka u baahan in uu programkan asiga si fiican u fahmo waxaa jirta qolooyinkan RDS ah annagoo aan maalin walba kusoo sharxin barta ay ku qoran tahay magaceena markaa dhinaceeda ku dhufat mar usbuuc horena waa sheegay xagga waxaa ku qoran meel loo yaqaano RDS Academy waa ku dhufanaysaa shay walba videoyada haddaad ingiriiska taqaano ayaga xagga ku sharaxay okay everything they explain
everything video haddaa youtube tagto aa ku qorto RDS qofba yuu kaaga waramin iska kaa dhigin macalin everybody meelahan uu ka baawsaday uu ka egtay then he's acting inuu teacher yahay so macalin inuu iska kaa dhigaya so waxaa habboon inaad meelahan eegto ii sheeg sida dropshipping looga sameeyo haddadan waxay xayeysiinayaan build comforting eBay store with the expert 11 years is a great software like waxaa moodaa maalmahan dambe inay qaaliyeen ayaga keliya ma jiraan waxaa jira software fara badan annaga aan isticmaalno oo accountyadeena kale ay ku xiran yihiin laakiin muhiimadda aan hadafkan aan u sheegaya waxaa ah it's not inuu ii sheeg qof idin soo ordo yuusan maanta 12 maanta idin dhihin total revenue intaasaan sameeyey 24 saaca intaad ku sameeyey eeg dadka waad arkaysaan tiktok dadka ku jira iyo meelaha la halmaalay snapchat iyo meelaha kale intaa baan sameeyey qofka waxaa loo baahan yahay siduu ku keenay siduu ku sameeyey ama total revenuegiisa orderkiisa iyo weliba waxa loo yaqaano intuu ka faa'iido waa inuu qof ku tusiyaa siduu ku helay siduu ku sameeyey yani qof accountigiisa lacag uga soo dhacda ma jirto without no reason okay sabab baa jirta marka sidaa la adligeed qolooyinkan Fiverr iyo maxaa la dhahaa Upwork fadlan waa Hindi iyo Pakistamiin iyo dadka loo yaqaano Bangladesh iyo Vietnamiin aad bay khatar u yihiin haddaadan aqoonteeda lahayn fadlan ha ku degdegin haddii aad u baahato inaad ku xirato is easy xaggana ku dhufan kartaa meeshan RDS waxaa leedahay waxaa rabtaa inaan ku xidho waxaa loo yaqaano VA-ga waa kana xag ku qoran VA-gaas xaggaas ayaad kaga codsanaysaa bishiina waxay kaa qaadi doonaa $15 okay waxaan isku dayaa videoga inaan soo gabagabeeyo waxaan ku xijin doonaa hadduu ilaa yidhahdo qaybteena afraad aan barnaamijkan taxanaha uga dhigi doono insha allahu tacaala fadlan qaybta afraad la socda iyo weliba qaybta shanaad kama harayno ilaa aan banaanka soo dhigno idinkoo awooda aad koorsigan lacag la-aan aad ku qaadataan haddaa caawinaad u baahataan qof alla qofkii gabagaba taagan uuna la soo xiriiri karaa iyadana waa saacideen oo saadiqudani iyo asxaabtiisa idin leh hey walaalayaal intuu xoogga shaqayn lahaa caqliga ha shaqeeyo cid kale yeese kaaga waramin waxaad adiga qabsan karto okay waxaan garanaynaa 1,000 qofood aan ingiriis aqoonin waxaan garanaynaa 1,000 qofood aanan aqoonin laakiin isku dayay oo barnaamijyadan noocyada meel la gaaray laakiin qofba yuusan ku dhihin waxaa bixinaysaa 3,000 2,000 500 iyo wax la halmaala waxyaaba adiga aad qabsan karto maalinta idin wacnaato